waran bitcoin maxaa ka cusub ayaamahan bitcoin xaaladeeda iyo mataqaana expectationka iyo dadka mataqaana oo waxaad soo gelaya dadka mataqaana oo sida hadda mataqaana financial institutionka weyn baa soo gelaya bal update naga sii ayaga hadda bitcoin laftirkeeda. bitcoin newski ugu weynaa waxaan dhihi karaa asbuucan kiiran dhaafay wuxuu ahaa ninkii ahaa Donald Trump oo shir maandhood ka hadlayay ayaa wuxuu yiri haddii lay doorto bitcoin waan difaaci doonaa weliba waxa la dhaho self custody ma qayna maqashin newskaas si fiican aad iyo arrintaas waa big news aniga si ila tahay aad iyo aad ay big news u tahay sababtoo ah Donald Trump waxay u badan tahay inuu soo noqdo sida la hadal hayo inuu soo ku guuleysto doorashada hadda madaxweynenimada Mareykanka inuu kaga guuleysto Biden bay u badan tahay sida la qiyaasaya hadda marka qiyaas bitcoin oo ka soo kacday 2009 oo cidna aqoonin in maanta ninkii madaxweyne mar soo noqday oo haddana u tartamay oo soo uu cadcad yahay inuu ku noqdo madaxweynaha Mareykankana dawladda adduunka uu dhaqaale weyn oo si public uu yiraahdo haddii lay doorto bitcoin baa difaacaya macnaha self custody waxa la dhaho in bitcoin qofku uu haysan karo baa difaacay hadduu si public u yiri arrintaas waxaan u maleynayaa inay big news tahay sababta nimanka hadda jooga ama xukuumadda joogta waxa lagu xaglinayay ama la sheegaya inay xoogaa ay ku wado xoogaa ay cadaadinayso inay regulation iyo wax soo kala ay bitcoin soo duldhigto macnaha xukuumadda hadda joogto maahan friendly bitcoin lama ahan iyo cryptocurrency wadaba haani waa runtii waa big news weeye oo runtii hadduu ninkaas aqbalo oo ama Mareykan laga aqbalo maanta ama regulation fiican laga siiyo haddii waa dareemaysaa waa massive way waxa imaanaya waa lacag badan oo mataqaana baa soo galaysa bitcoin xidigaha aadasa laakiin hadda ninkaas uu ku soo noqonayay oo maxkamadii waxba ku furan marka maxay isleedahay marka kama soo noqonaya isleedahay hawshan Mareykan soo doorashada aniga salata u badantay inuu soo noqdo wax ka celin kara u malaynayna jira hadda maxkamadan la sheegay xataa waxa dhigta inay nimankan waa wax ku saabsan adigu political siyaasadda wax ku saabsan maxkamadda waxay rabaan inay damage ku sameeyaan ama u tartami laakiin u malaynmayo inay arrintaas ka joojinayso haday maxkamadayaan u xiraana waxa u malaynayaa inay meeshaas ka bilaaban doonto ay caqabad weyn meesha ka bilaaban doonto oo dad badan ba taageersan dadkii kala bar in ka badan ba hadda taageersan sida muuqata waxa dhigta rabashada inay bilaabaan inay mudaharaaday iyo dhibaato keenaan waana sida dadka intiisa badan hadda aaminsan yahay media la socodsido kaleeto in waxay aaminsan in ninka lagu caburinayo maxkamadan waa dhici karta anu mali khalad ma gelina muu galay topigiga ma aha laakiin dadka intiisa badan oo wadankaas degan waxay aaminsan yihiin in arrinta maxkamadda ay tahay arrin asaga lagu caburinayo marka Allahu a'lam in la dooran doono in kale laakiin hadda wuxuu ku jira kolba sida idaacaduhu sheegayaan TV-yadu in asoo ka horeeyo qiyaasta la qiyaasayo Biden in asoo ka horeeyo marka hadduu asagu soo baxo oo suu sheegay ka rumeeyo siyaasiyiinta badanaa warkooda hadhow ka baxaan haday rabaan laakiin hadduu ka rumeeyo oo uu ka dhiga bitcoin macnaha uusan wax caqabad u geysan oo yiraahdo macnaha qofkii uu haysan karaa oo sharciyadan hadda nimankan wadaan uu joojiyo waxaan aaminsanahay inay siinayso boost badan bitcoin oo ay noqotay bitcoin hadda waa noqotay bitcoin waxay noqotay meel lagu gorgortamay noqotay hadda asaga hadalkiisa hadda dhageystay wuxuu yiri 50 million American ayaa waxay haystaan bitcoin haysta ama marka 50 million kaas wuxuu ka raadinaya cod buu ka raadinaya si u doortaan marka wax ever ka soo kacay zero ka soo kacay in maanta ay noqotay game ama wax lagu macnaha lagu tartamo 15 sano gudahood arrintaas waxaan u maleynayaa arrin achievement aad u weyn ay tahay sababta ugu soo celinaya waxa weeye dad badan oo ama dad qaarkiis waxay ku leeyihiin Soomaaliyeed oo kaleeto bitcoin soo ma ahan wax macaan leh ma aha waxa macnaha levelkeeda ma dareensana haddii hadda soo gashay in doorashadii macaayishka Mareykanka oo wadanka ugu dhaqaale badan adduunka ay ku dhex jirto ku yeelato effect ku yeelatay hadda tira aniga Soomaali waxaan waa iska crypto waxaan waa iska wixii isku dhici jiray ma qaar qofkood ku leeyahay wixii isku dhici jiray waa runtii dadka Soomaaliya waxa lagu wareeriyay waxyaalo
forex bana iyo wax kaloo lacag degdeg ah laga sameynaya waxaas intii lagu wareeriyay marka waxay u qabaan inay bitcoin la mid tahay waxyaalahaas kaleeto ay qayb ka tahay marka qofka markuu ka maqla oo bitcoin ka hadlay wuxuu ku leeyahay so wixii ma ahan waxaan macalin weyn miyay leedahay waa waxaan wax isku dhacayo ma oga macnaha levelkii hadda gaartay ama gaarsan tahay niyo maxamed waa runtaa saa ku weyta dadka Soomaaliya dhibaatada waxa uu keenaya oo boqolkiiba 9 uu keenaya waxa weeye waa cilmi la'aan way baashi ma fahansan qofka haduusan fahansanayna runtii waa garanaysaa bitcoin waagi hore markii imaanaysay hadda Nairobi oo kale waxa ka dhacay iskaan caadan ba ka dhacay hal bitcoin cash la yiraahdo oo maaragtay dadka lagu dhici jiray oo scammers niman ay sameynayaan ama nimanka la yiraahdo mataqaana MLM multi level bitcoin cash coin baa dhaha malaymay coin ka sunaya bitcoin cash way waxyaalo kale ah waxyaalo kale oo crypto ma ku saabsanay marka qaar kood MLM bi ahaayeen adiga waxa mataqaana MLM sidaad oo garanaysaa forex iyo wax la mid ah oo garanaysaa one coin oo garanaysaa Soomaalida si aad loogu dhacay lacag badan loogu dhacay oo garanaysaa marka dadkaas oo kale ama taqaana marka waxa lagu sameynayaa scam lagu sameynayaa laakiin dhimar qof walba marba la soo qabsay anagu ma bilowga hore lama qabsan meel waxaan kala qabsanay waa marxalado la soo maro in de qof marka hore uu dhaw waxaan ama waxba ka jirinin ama waxaan wax isku dhacay yihiin kadibna ay u soo gudbaan okay crypto-da hadda blockchain hadda qaar kood dad waxay aaminsan yihiin blockchain inuu yahay technology-ga jira inay crypto mustaqbal leedahay laakiin bitcoin xoogaa lacagaha ay ku saabsan tahay iyadoo aysan mustaqbal lahayn dad qaar kood aaminsan laakiin level la soo maro way kadib wax ogaanaya waxa dhan isku soo dar blockchain crypto inaysan macno weyn saas ku sii fadhiin waxa macnaha ku fadhiin yihiin bitcoin oo lacagta ku saabsan arrinta lacagta inay tahay